shirkadda daabacaadda casriga ee Sagal Chatlaanteeda magaalada Burco ayaa kaalmo agabka dhaxanta u qaybisay dadka uu haleelay xanuunka dhimirku ee ku jira cusbitaalka dhimirka ee maandhaya magaalada Burco iyo xarunta xanaanaynta dhallaanka agoonta ee Umar bin Khattab ee waqooyiga magaalada Burco madaxa shirkadda daabacaadda Sagal Chat ee gobolka Togdheer Maxamed Daahir Ali ayaa sharaxay kaalmada ay gaarsiiyeen dadka uu ku dhacay xanuunka dhimirku iyo dhallaanka agoonta madaxda xarumahaasi ayaa u mahad celiyay una duceeyay shirkadda Sagal Chat sidoo kale waxa ka hadlay goobtaasi xildhibaan Khadar Nuux Siciid oo kamid ah golaha deegaanka ee degmada Burco duqa degmada Burco Maxamed Muraad iyo ku xigeenkiisa Maxamed Xasan Jaamac Xoday kuwaas oo ku amaanay shirkadda daabacaadda Sagal Chat doorka ay ka qaadatay horumarka gobolka Togdheer goobtan aan joognaa waa cusbitaalka maandhaya ee lagu daryeelo dadka maskaxda ka naafaysan annagoo ah shirkadda Sagal Chat xafiiska Burco waxaan halkan keenay kaalmo aanu doonayno inay qayb qaadano daryeelka dadka naafada ah waxaan doonaynaa inuu hadda ku wareejino 30 buste oo laba nafar waxaan ku sugannahay hadda xarunta Umar bin Khattab ee agoomaha magaalada Burco annagoo ku wareejinayna qaybtii kale ahayd tayaasha ay ugu tala gashay shirkadda Sagal Chat alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan mahad celinaynaa Sagal Chat qaybteeda Burco oo runtii garatay dhaxantaas oo dhacday awgeed inay deeq busteyaal soo gaarsiiyaan cusbitaalka waliba qaybta dhimarka waxaan leenahay jazakallahu khayr jazaa halka saarteen ilaahay ku bedelo maxay tahay khayr marka koobaad waxaan u mahadnaqayaa shirkadda inoo keentay bustayaasha waqtigii loo baahnaa ee maxay tahay dhaxanta daran ay dhacaysay waxaan ku suganahay xarunta agoomaha ee Umar bin Khattab waxaan aad u soo dhaweynaynaa la duceynaynaa shirkadda weyn ee Sagal Chat oo u deeqday dadka agoonta aad wax baranaya maanta bustayaasha aragtaan oo ah kuwii dhaxanta waqti aad iyo aad loogu baahan yahay oo dhaxan baan ay ka dhacayso gobolka caruurta agoonta ah ugu soo deeqay bustayaasha aad baan ugu mahad celinayaa ilaahay idin barakeeyo shirkadiina ilaahay barakeeyo dadka halka maanta wax la guddoonsiinayo la siinayaa waa dad ilaahay subxaanahu wa ta'aala maankoodii uu ka qaaday marka hore waxaan ilaahay weydiinay ilaahay maankoodii u soo celiyo shirkadda Sagal oo mahad celinaayo dadkii maanta ugu nuglaa ayay garatay inay deeqda oo waliba maalintii u baahnaayeen oo dhaxan fara badan dhacayso oo mahad celinayna shirkadaha kalena waxa leenahay lagu daydo waa xarunta Umar bin Khattab oo agoomaha waliba inamada ah nabiga sallallahu alayhi wa sallam yatiimka iyo agoonka waa ka ana wakaafil yatiimi ka haatayn fil janna sida labada farood oo jannada ku naam Calidaahir Maxamed Boos TV Universal Burco